ismaqal iyo daawasho wacan daawadayaal halkani waa channelka Baadisoo Cumadiya 15 bishii 9 sanada 2020 qodobada warkeena ugu doorka roona waxaa ka mid kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socda Xasan Sheikh iyo gudoomiye Cabdi Xaashi baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday kiiskii dilkii Maxamed Xamdi Maxamed qaar ka mid ah dowladaha Carabta oo sharci daro ku tilmaamay taageerada ciidan ee uu Turkigu siinayo Soomaaliya laba nin oo Soomaali ah oo kiis halis ah looga xiray garoonka Jomo Kenyatta qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan haddii Allah awood la ka raali noqdo u diyaar garoobo daawadayaal warkii oo fidsan kulan u dhaxeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa hadda ka socda xarunta xisbiga UPD oo hogaamiyaha ka yahay Xasan Sheikh kulanka waxaa qayb ka ah mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga qaranka kuwaas oo ay ka mid yihiin xildhibaan Cabdiqaadir Cusable iyo Shariif Xasan Sheikh Aadan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed kulanka ay mas'uuliyiintu uga arrinsaneen xaaladda guud ee siyaasadda dalka ayagoo diiradda ku saaraya xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee sanadda 2020 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xisbiga UPD Muqdisho hadda waxaa ka socda shir u dhaxeeya dhammaan madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo kaas oo looga arrinsanaya sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho aan waqtigeeda dhaafin laguna wada qanacsan yahay shirka madaxda uga socda Muqdisho ayaa galay maalintii labaad waxaana la sheegay in qodobadii maanta miiska saarnaa ay ugu badnaayeen kuwii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland guddoonka baarlamaanka aqalka hoose oo Soomaaliya ayaa loo gudbiyay soo jeedin ku saabsan in mudanayaasha golaha ay ka guddoodaan ficilkii dilka ah ee loo geystay ee banaxariista jannaha ka waraabiya Maxamed Xamdi Maxamed Faarax oo 19 jir ahaa xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka mid ahaa mudanayaasha saxiixay soo jeedinta in arrinta lagu daro dooda baarlamaanka ayaa hore u sheegay in ay muhiim tahay in sidaas sameeyaan maadaama falka gabadha yar lagu dilo uu ahaa wax aad u fal dilka Xamdi Maxamed Faarax ayaa waxa uu dhaliyay caro aad u xoogan waxaana aad uga falceliyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool caasimadda dalka Soomaaliya booliiska Soomaaliya ayaa weli ku howlan baaritaanka kiiskan iyadoo dhowr qof ay tuhmanayaan la sheegay in ay gacanta lagu hayo ciidamada jamhadda uu hogaaminayo Colonel Faisal Falaaluga la magac baxday dib u xaraynta SSC ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada Soomaaliland ay ku leedahay gobolka Sool ciidamada Faisal Falaaluga ayaa weerar ku qaaday saldhigga ay ku yaalaan deegaanka Xagar ee ka tirsan degmada Tukaraq ee gobolkaas kaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo Soomaaliland sida ida xogagaala ay noo xaqiijiyeen weerarkaas ayaa waxaa iska caabin xoog leh kala hortagay ciidamada ku sugan saldhiggaas taasoo keentay iska hor imaad saacada kooban dhex marayay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa jamhadda Faisal Falaaluga dagaalkaas ayaa waxaa ka dhashay khasaaro labada dhinac sida ay dad deegaanka ku sugan inoo sheegayaan inkastoo ilaa hadda si rasmi ah loo ogaanin xaqiiqdiisa ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxaya xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha amniga ee gobolka mana aha markii ugu horeysay ee ay ciidamada Soomaaliland iyo jamhadda SSC iskaga hor yimaadaan dagaal caynkan oo kala Senator Maxamuud Axmed Maxamuud mashruuc oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee sanadgusiyeedka uu muujinayo habacsanaan iyo maamul xumo ka jirta wasaaradda waxbarashada dalka 100 arday oo lagu fasaxo jihada mustaqbalka madow waa arrin taabanaysa waalidiin kastoo Soomaaliyeed waxaana ka sii darin celceliska baasida imtixaanka oo ahaa 65% sida ay noo xaqiijiyeen howlwadeenada wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinta dugsiyada ayuu yiri Senator mashruuc waxaana uu soo jeediyay in baaritaan gaar ah lagu sameeyo arrinta isla markaana ardayda imtixaanka loogu celiyo ama wax laga bedelo hanaanka qiimeynta imtixaanka senatorka ayaa sidoo kale ka digay in ardayda la marin habaabiyo mustaqbalkooda loogana ciyaaro iyadoo manhajkii dhawaan la diyaariyay la maro kaas oo ku sheegay in hab aan sharciga waafaqsanayn loo maray arrinta manhajka qaranka waxaa ka horeeya in la ansixiyo sharciga waxbarashada dalka Education Act qorista manhajka qaranka waxaa ka horeeya in la dhiso golaha qorista manhajka qaranka kaas oo lagu hagayo siyaasadda heerka qaran kaanoo turjumaysa qabka kobaca maskaxda ubadka Soomaaliyeed mustaqbalka horumarinta Soomaaliyeed la jaanqaadka qarniga 21aad ayuu yiri Senator mashruuc oo ka hadlayay kana qayb galay barnaamij ka baxayay TV-ga Somali Cable loogana hadlayay horumarinta waxbarashada dalka Soomaaliya qaar ka mid ah dawladaha Carabta oo wada olole ka dhan ah wadanka Turkiga kaas oo si xooggan uga soo horjeeda isbahaysiga ay la sameeyeen Yuhuudda
waxayna markaa dood ka keeneen xidhiidhka u dhaxeeya wadamada colaadaha ka soo kabanaya sida Soomaaliya. dowladda uu hogaaminaya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku dadaalaysa inay dib u soo celiyaan saameyntii ay ku lahaayeen dalalka dibadda waxaana lagu dhaleeceynaya xiriirka weyn oo ay la leeyihiin Soomaaliya. Turkigu wuxuu taageero buuxda siinayaa Soomaaliya waliba dhanka militariga ayuu aad uga saaciday taasina waxay keentay in dowladda Jordan ay ku tilmaamto sharci darro. wargeyska The Jordan Time oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan dowladda ayaa daabacday qoraal laga dheexan karo in lagu baaqiyo dagaal ka dhan ah Turkiga oo ay sameynayaan dowladaha Carbeed iyadoo la soo hadal qaaday saldhigyada ay ku leeyihiin Liibiya, Suuriya iyo Ciraaq oo ah 3 wadan oo Carbeed. sidoo kale waxa ay warbixinta si toos ah ugu abaaraysaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan kaas oo lagu sheegay inuu yahay mid xayeysiinaya awoodiisa ciidan. Turkigu wuxuu saldhig militari ku leeyahay wadamada Soomaaliya, Liibiya, Qatar, Ciraaq, Suuriya iyo Waqooyiga Qudus dhammaantoodna uma haysto ogolaansho sharci ayaa ka mid ahaa qoraalka wargeyska lagu qoray. turkigu waxay saldhigga ugu weyn oo meel ka baxsan wadankooda ka dhiseen Muqdisho waxaana lagu tababaraa ciidamada Soomaaliya kuwaas oo si gaar ah uga dirira kooxda Al-Shabaab oo ay xiriir leeyihiin Al-Qaacida. dowladda Kenya ayaa xabsiga u taxaabtay 2 nin oo ajaanib oo rabay inay ka dhoofiyaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta qaasir cidra. warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa ku waramaysa inay 2 nin u qabteen saraakiisha garoonka kadib markii ay shandadahooda ka dhaxleen 25 kiilo isugu jira qaadka oo midka loo yaqaan Miroog. 2 nin ee magacyadooda lagu kala sheegay Barre Aadan iyo Cismaan Maxamed ayaa waxay saraakiisha amnigu ku xireen xilli ay dhoofin rabeen garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta. Barre Aadan ayaa waxaa lagu qabtay 20 kiilo oo qaada nooca loo yaqaan Miroog kaas oo ku dhex qarinaya labadiisa shandadood sida ay baahisay laanta dambi baarista Kenya. sidoo kale Cismaan ayaa isagana waxaa laamaha amnigu ku qabtay 5 kiilo oo qaadka markaas la soo gooyay kaas oo sharci darro lagu qarinayay. 2 nin ee ajaanibka isu diyaarinayay inay dalka ka dhoofaan Barre Aadan iyo Cismaan Maxamed ayaa waxaa lagu xidhay Jomo Kenyatta. saraakiisha sharci fulinta ayaa lagu yiri qoraal kooban ka soo baxay agaasinka laanta dambi baarista. waxaa sidoo kale qoraalkaas lagu yiri Barre waxaa lagu qabtay inuu ku dhex qarinay labadiisa shandadood 20 kiilo oo qaad khafiif ah Mirooga halka Cismaanna uu qarinay 20 kiilo oo qaadka cusub. guud ahaan waa naga intaa daawaday wixii war naga soo gaaray daafaha caalamka halkani waa channelka Baadhiso Media.